inay lugaha bararaan oo yacni sidaa hortiina ka muuqata ay noqdaan waxa ugu badan ee sababo waa 5 shay. kow waxa waaye haddii cillad ay ka jirto wadnaha oo congestive heart failure wax loo yaqaano oo jiro oo loola jeedo in wadnihii oo ku guuldareysto inuu bam gareeyo ama inuu yacni dhiigga jirka si fiican ugu qaybiyo. waxaan ognahay wadnaha yacni dhiigga yacni wuxuu gaarsiiyaa ama u qaybiyaa jirka oo dhan soo adeegsanaya murqihiisa. murqaha wadnaha yacni waxay tuuraan dhiigga oo xididada ayaa la raaciyaa si jirka intiisa kale loo gaarsiiyo. marka wadnaha haddii uu ku guuldareysto waxaa dhacaya in circulationkii ama wareegii dhiiggii yacni inuu cillad ku timaado maadaama dhiig fiican jirka aan la gaarsiinin dhiiggii kalena in la soo celin waayo cillad ka jirto wadnaha awgeed. marka cilladaas way keeni kartaa bararka lugaha. bararkana lugaha kaliya ku koobno meelo badan oo noqon kara laakiin hadda anaga lugaha oo kaliya ayaan ka hadlaynaa. laba waxaa keeni kara haddii cillad ay ka jirto beerka oo haddii uu jira wax loo yaqaano liver cirrhosis oo ah in qaab dhismeedkii beerka yacni cillado ku yimid ama cudurro ku yimid sida waxa ugu badan waxyaabaha yacni dhibaatadan ay ka dhalato hepatitis-ka hepatitis B hepatitis C iyo wax lamid ah cagaarshowga waxaan bulshada ay u taqaano. marka haddii beerkii uu jiran yahay maadaama xididadan dhiigga ama dheecaanka waxa dhan ka soo qaada lugaha iyo qaybta hoose jirka dhan ee dhex maraan beerka si wadnaha loo gaarsiiyo. haddii beerkii uu jiran yahay waxaa laga yaabaa ama waxaa dhici kara in qaab dhismeedkiisa wax ka qaldamaan oo yacni architecture-kii ama liverkii yacni qaabkiisa siduu ahay yacni wax iska bedelaan taasoo keenaysa in xididadii pressure badan oo soo koro taasoo cadaadis badan macnaha oo soo koro taasoo keenaysa in dhiiggii gadaal u laabto taasoo keeni karta bararka lugaha. meel kalena way jiraan laakiin haddana lugaha oo kaliya ayaan ka hadlaynaa. 3 waxaa sababi kara haddii cillad uu ka jira kilyaha oo kale sida infection oo kale ama xididadii yacni oo waxaan loo yaqaano arterieska ama vessels-ka aan dhahno si guud xididada dhiigga ee kelyada mara. waxaan ognahay kelyada waxay filter garaysaa marka mararka qaar waxaa damage ama dhaawac uu soo gaarayaa sababo kala duwan awgeed ama infection ha noqoto ama xanuun sokor qof qabo kelyaha dhaawac ka gaara ama xanuun dhiig kar qof qabo yacni kelyaha ka dhaawacmeen ha noqdo damage wuxuu gaarayaa xididadii. marka blood vessels-kan doo dhiig damage gaar inta badan waxaa ka dhashta xanuun loo yaqaan nephrotic syndrome. marka waxaa problem ku imaanaya haddii yacni shaqi kelyada يعني علت كنت مع جاران كبل ريسك هذا جاران كبل ريسك دي علت كنت مع ذا حدعاي إن يعني هيركي أما ليفلكي بروتين كان ألبومين كان لدهاي يعني إنه هو صدعه مادام قارب بدن أو بروتين كاس كمية راعيان يعني كذا راعيان مادام الشبقي أو داوع وجاري مركارين كانوا حكاينيسا إن بر بدن جيك اللغة أركا جاران اللغة يعني ما عندك علينا أو برك اللغة سياسو كوي ماذا. marka waxaan dhahan ilaa hadda wuxuu ka iman karaa wadnaha haddii cillad ka jirto wuxuu ka iman karaa beerka haddii cillad ka jirto wuxuu ka iman karaa kelyaha haddii cillad ka jirto. sidoo kale bararkan wuu iman karaa haddii mataqaanaa damage ama dhaawac uu gaaro venuska xididadan dhiigga dib ugu celiyo wadnaha oo gaar ahaan kuwa lugaha oo kale maadaama lugaha aan ka hadlayno haddii dhaawac uu gaaro ayadana way keeni kartaa. oo tusaale oo kale waxaa jirta ognahay valve waxa la dhahaa oo dhiigga markii kor loo soo tuurayo يعني كقيب قاطو إن يعني دي بوصن الله بنين يعني كإلالي مركب هذه دواء عقار فالفاس يوحلا مده نما ديجي وحنجروه وكل يوحلا مده ودبعتي كنت مع هذا نكاس وهذا عين يعني برا كان وجي ما أنت بدن حكومة ذاتك عيلا وذاتك عتكو عيلا ميزان كبدن يعني أنت بدن برا كاس ولا وارك ما دام حددي بريشر بدن عياس بدن هيلب كاس معدين استرتد كرايان ولومينكي أما دمعدي حددك إيراني سوديك إن السوء اليات كان استدك عتكو عيلا وكلا يا لوارك حالدا قضبك فردنا فانتين يا رجالي قضبك شنو دحوا هدي يعني سيدا هورتين كوخرن سافيا لونج تيرم بروتين ديفيشنس وحلو يقنوا هدي بروتين كان غارها البومين كي وحلا ميدا oo yiri dadka inta badan waxa lagu arkaa xaaladan malnutritionka ama nafaqa darrada ay hayso lagu arkaa qofka aad ka nafaqa darrada zaadka ay hayso lagu arkaa bararkan marka ayadana waa keeni kartaa qofka aad ayuu yani miisaankiisu dhacay inkastoo uu kala duwan yahay laakiin waa proteinkaas ayaa yaraanayo qofka nafaqa darrada ay hayso inkastoo nafaqa darrada marka la qeexay kaliya lagu qeexay qofka inuu caata yahay
oo yani qofka soo cayilin hataa malnutrition ku imaan kara marka inaa fahanteen ayaa rajaynaya isagana borotiinka hadduu u yaraado nafaqa daro darteed ayadana marka shantaas ayaa ugu badan waxaa keeni kara in qofka bararka lugahiisa yani lugaha uu ka bararo marka waxaa jira xaalado u nugleyn kara ama ka qayb qaadan karaba sababaha waxaa ka mid ah qofka haddii istaagiisa uu badan yahay oo aad u taagan yahay ogna gravity-ga dartiis qofku markuu taagan yahay macnaha lugaha dhiigga in gadaal loogu soo celiyo way adag tahay qofka duu aad u taagan yahay bararkaas uu yimaada fadhiga badan qofku aad ku fadhiga badan oo yani hal position macnaha u badan oo hal fadhi u badan ama istaag u badan asigana bararkaas waa lagu arkaa hooyada uurka leh bararkaas waa lagu arkaa gaar ahaan uurka koowaada inta badan ugu badan hooyooyinka sababtan waxay tahay common iliac arteries waxaa la dhahaa xididadan dhiigga common veins macnaha aan ka wadaa kuwan dhiig ka soo celiya lugaha ayaa pressure cadaadis uurka markuu weynaado wuxuu saaraya cadaadis marka cadaadiskaas waxay sababay dhiig inuu soo gudbi waayo oo kor soo aadi waayo uurka maadaama uu weynaanayo cadaadis ayuu saaraya xididada dhinacyada soo maraayo marka ayadana way keeni kartaa oo hooyada uurka la gaaraan uurka koowaada inta badan lagu arkaa sidoo kale waxaa keeni kara side effect-ga ama saameynta xun oo daawooyinka qaar ay leeyihiin sida daawooyinka loo isticmaalo dhiigkarka daawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo qayb weyn ayay ka qaataan bararkaas marka daawooyinka qaar waayo inta badan daawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo oo qof dhiigkar qaba arkay lugahan ay barareen marka daawadaas ay ugu imaan kartaa sidoo kale non steroidal anti-inflammatory drugs waxaa loo yaqaan NSAIDska daawooyinka ay ka mid yihiin waa ibuprofenka iyo naproxenka iyo diclofenka iyo waxyaabahaas ayadana waa daawooyin yani aad u isticmaasho bararkaas ku keeni karo sidoo kale steroidska daawooyinka aan lahaa ay ka mid yihiin prednisolonka iyo dexamethasonka iyo waxyaabahaas ayagana way keeni karaan bararka hadaa muddo isticmaasho laakiin sidoo kale waxyaabaha ku nugleyn kara bararka inuu yimaado waxaa ka mid ah haddii yani isticmaasho daawooyinka sokorta daawooyinka qaar ee sokorta loo isticmaalo marka ayadana way ka qayb qaadan kartaa marka inaa fahantay ayaa rajanaya waxa keeni kara iyo waxa fududeyn kara iyo waxa ka qayb qaadan kara marka qofka haddii uusan isbitaal aadin bararkaas oo muddo isku arko kusoo laalaabto oo daawooyin iska yar oo yani kaada badiyo waxaas oo qaata bararka oo ku shuuqo aad ugu soo laalaabto hadduusan iska daaweynin oo wadnahay ka imaan kartaa dhana keliyaha ka imaan kartaa beerka ka imaan kartaa iyo xaaladii kale hadda aan sheegnay marka haddii uu jack up ismarin oo isbitaal tagin oo isbaarin waxaa ka dhalan kara in yani bararkii uu ziyaado in qofkii socodka uu gabo uu socon waayo lugaha aad ay u danqadaan waxaa ka dhalan kara hataa meesha inuu infection ku dhashto maadaama dhiig iyo dheecaan ay ku xayiran yihiin inuu infection ka dhashta yani ayaa dhici karta sidoo kale circulationka inay saameyso oo dhiigga yani qulqulka dhiigga inay saameysaa laga yaaba arrinkan marka waa xaalad yani imaan kara ama dhibaatooyin imaan kara marka qofku waxaa fiican hadduu isku arka bararkan inuu la xiriiro dhakhtar inaa fahantay ayaan rajaynayaa xaaladaha keeni kara insha allah wixii su-aal aa qabtaan commentiga yani inoogu reebay saa idinkaga soo jawaabno hadduu ilaaha yiraahdo wajigantasi uu ku ogyahay